riday xasuuqii ka dhacay Falastiinkii ka dhacay kulamada ayuu ka riday wuxuu burburiyay guriye ay dadgalayaan buu burburiyay wuxuu burburiyay xabaalihii 100 sano ka hor la aasay buu burburiyay madaxweyne waxaan ku soo gudbinayaa muuqayga waad garanaysaa magacayga waad garanaysaa madaxweyne waxaan ku soo gudbinayaa waxaan ka ballanay bay ahayd inuu ninkaasi bilaabi doono markuu doorashada ku soo baxo xasuuqa madaxweyne waan ka wada hadalay beesha Axmed Ismaan oo dhan inuu beesha dana gaar ka leeyahay inuu cadaawad gaar u hayo madaxweyne horaan kuugu sheegay waxaan ogeyd Cabdi Xasan baa iibsaday dhul dawladdu ay iibinayso oonu isagu ahayn madaxweyne dalka ka ahayn uunu ka ahayn wasiirkii una ka ahayn maaliyadda oo uunu ka ahayn wasiirkii una ka ahayn hawlaha guud waa kii u soo aanbabaxay ku dagaalamay ogeyd madaxweyne waan ku sheegnay waad ka gudatay waajibkaagii ballantiina waad fulisay gidaarka ilma Cabdilaahi Deeriye waa kii u soo aanbabaxay u soo faytay madaxweyne waajibkaagii waad fulisay wuxuu iminkana u soo aanbabaxay meel ay leedahay agoon ay leeyihiin oo dhaxalkii la qaybshay ayuu u soo aanbabaxay ilaahay hortii waa la gurmi geystaa anigoo jooga reerkii dharoonajaan la hadlay war madaxweyne maxaa dhacay baan idhi Ismaan Guulaan meel yar weydiistay buu way ii diiday ana ku imanay sug baan idhi waan imiday Booramaan imiday waan soo fadhiisiyay tolkay shirkii jaraa'id waan ka soo dareeriyay aqal baan iskugu keenay war waa madaxweyne waa ninkii gobolka ka dhashay war maanta aniga hal la igu muuneeyo hadan suldaankii reerka ahay baan idhi oo waxii u doonayay hal la siiyo waa la igu wareejay madaxweyne waxa la wuxuu doonayay hal la siiyay show ninku waxa la yiri madaxweyne ninku haduu islaantaada doonayo inantaadu uma dhandhantaa la yiri inantaada hadaad hadu dhistid leedahay nin islaantaada doonaya de inantaada ma guursanayo islaantuuba raba show ninku nin dhul doonayaba madaxweyne maaha waa nin doonaya inuu dadka xasuuqo waa nin doonaya uqdad kale ay ku jirto oo Axmed Ismaan ugu jirto anagu deemo ogeeyna dadkii doortay baan ahayn dadkii gacanta u taagay baan ahayn dadkii u ruux go'ay baan ahayn ninkii gobolka ugu dhawaa baan ahaa madaxweyne waan la hadlay wixii waan soo diyaariyay tiradiisu intay tahay ii sheeg baan idhi madaxweyne reerka meesha ma ka rartay buu iigu jawaabay reerkee maya reerka buurta war maxaad buurtaba ka dooni dana guud hadii ay dawladdu qaadanayso madaxweyne diyaar baanu nahay wixii dan guud taangiyadii baa ka samaysan 300 oo mitir bay martaa qasabadu 4 jago oo dan guud aan ka bixinay hadii inta kale maanta ay dawladdu qaadanayso waa dawladayadii dad muwaadiniin aan nahay waa dawladii aanu soo dhimanay waa tii aanu soo halganay waa tii aan dooranay madaxweyne تو أنو دنجودو ديدي كرنما لكن دان شخصي يالي ماين مدحويني نيكاني وحو وطا دان شخصي بو وطا ورشدو كرد سنايا هدي وباقا مدحوينوه إنكا قبان وايو قفير إيو قفوين دقال هالو ديار قروبو أرنية أدون kuwa dibadda jooga waxa faraya inay u diyaar garoobaan walaalahood saakiintan ad gobolka u soo dirtay madaxweyne ee u beerka kaga cageynaya haday bar saab tahay isagoo qaylinayo aqalka iigu yimid wuxuu yiri meesha xilkaygii baan ku waayay jiray haday maayar tahay wuxuu yiri xilkaygii baan ku waayaya waxaan leeyahay maayar Saleebaan waar xilka Ilaahay baa bixiya Saleebaanow nin tolahoon wada dhalanayna waa tahay ha u nuglaanin ha u nuglaan indhoole ha u nuglaanin war ha u habaroobin ninkani indhahala ee gurcudka gudaya waxaan u dirayaa beesha bahabar celi dad walaala aan nahay dad tolaan nahay dad ehelaan nahay dad wada dhashaan nahay shalay dhibi markay ku dhacday kuwii barbar joogsaday baan ahayn ee looga u geeyay ee liska u geeyay ee barbar taagnaa baan ahayn shalay kolkay ku dhacday maantana waan idin barbar taaganahay waa naga qabta walaalahayo indhoolahani naga qabta indhoolahani hantida doonaya ummadda masaakiinta waar naga qabta waxaan sii gudbayaa beesha maxaad xase waar naga qabta عمر محمد عمر تلفزيون كوريال مقالة بورما.